gudoomiye ku soo dhawow waa registration waa teamka registration diiwaangelinta waa aad baan ugu dhawaay waa maasanta waxaan ka rabnaa afartaada magac ugu horeyso iyo nambarkaaga iyo gobolkaad joogtid iyo degmadaad joogtid magacaygu waa Cabdulqaadir Maxamed Shuruuc Guuleed waa daafurka barnaamijka isdiiwaangelinta beesha Habargidir barnaamijkan oo ay ka shaqeeyeen golaha hogaaminta Habargidir waxa uu qof kasta oo ka weyn da'da 15 sano faraya inuu isdiiwaangeliyo ujeedada barnaamijkan isdiiwaangelinta ay ka bilowday magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ayaa mid hordhac u ah diiwaangelin baahsan oo bulshada loogu diyaarinayo sidii ay isugu diiwaangelin lahaayeen ka qayb qaadashada doorashada guud ee qaranka sanadka 2025 taas oo la filayo inay noqoto qof iyo cod barnaamijkan isdiiwaangelinta oo ay bilaabeen guddiga hoggaanka Habargidir ayaa ah mid wax badan ka bedeli doona gobolada Mudug iyo Galgaduud waxaana ka faa'iideysan doona guud ahaan dadka Soomaaliyeed nidaamka casriga ah oo horseed u noqonaya doorasho qof iyo cod ah gudoomiyaha golaha hogaaminta Habargidir Professor Cabdulqaadir Maxamed Shuruuc ayaa noqday qofkii ugu horeeyay isdiiwaangeliya Professor Shuruuc ayaa sharaxaya hawshan maanta laga daafuray Gaalkacyo halka ay ka soo bilaabatay iyo ujeedada laga leeyahay hawshan hadda aan maanta u joogno daafurka diiwaangelintu waxay hordhac u tahay qof iyo cod kaalintiin inaad ku yeelataan inaad dhaliili kartaan qofkii inta ballanqaad sameeyey oo kala doorateen aan ballanqaadkii ka soo bixin la doodi kartaan wax ka sheegi kartaan waa dimuqraadiyadda sida sheegayso adduunka waa la soo gaaray aqoontii waa balaaran waxaad rabto aan rabin baa jira waxa aan rabno ma wada rabnaayo ma wada dhaqaaqna dan baa loogu wada jirtay way u dhaartagan diiwaangelinta looguma talagelin keliya gobolada dhexe iyo banaadir shabeellada hoose koonfur galbeed jubbooyinka meel alla meesha beeshaan jirto meelaha degaan waa way gaaraysaa dad iyo dibadda haddii ay beeraan safar baa tagaya hawlaha halkan ka socdo kale ayaa ka soconaysa waana la gaaraya waana soconaysa midda ah ma la ogyahay haa waa la ogyahay dowladda abadaadinaysay diiwaangelinta waxaa maalin walba isku haystaa waxa weeye diiwaangelintii ma dhammaystirna ee waqti ha lagu daro inaan dhammaystirnaa rabnaa intaan la gaarin xilliga marka raaliban way rabtaa way hagaagi weyne marka annaga bilowga inay hagaagi karto tusayna dad way hagaagaysaa waa la ogyahay dowladdu waa ogyihiin meel walbana waan ka sheegnay in loo baahan yahay dadka in la diiwaan geliyaan mashruuc fara badan lacag fara badan baa ku baxay laakiin anaga midaan Habargidir wada xoog baxay jeebkayga wax ka soo baxo aan ku gadna anaga ku gadna qalabka wadano waa jeebkayga halka taagan oo mashaariicda waaweyn lagu fulinayo wala dadka Habargidir ilaahay xilliga bay ku helayaan xabadii $400 iyo $10 bay joogtaa cid uu kaalmaysa lama marka wax kasta waxa lagu qabtaa wax u badan dhalinyaro ayaa loo tababaray diiwaangelinta barnaamijkan waxaana ay dadku ku diiwaangelin doonaan goobaha ay ku sugan yihiin sida gobolada dhexe gobolka Banaadir iyo gobolada kale ee beesha joogto gudoomiyaha gobolka Mudug ee Galmudug Cabdiraxmaan Cali Diiriye oo ka qayb galay munaasabada maanta lagu daafuriyo barnaamijkan ayaa ka hadlay sida uu arko waxaan u aaminsanahay inay ka soo bixi doonto in Soomaaliya markii dhowr meel loo qaybiyo meelna ka noqono gudoomiyaha ururka haweenka ee Galmudug Maymuun Cali Nuur ayaa ka hadashay heerarka barnaamijkan uu soo maray iyo guulaha la gaaray ilaa hadda quruxdeedii way dhacday waxaa farxad iyo amaantay beelweyntan uu maroodi ahay maroodigu waxaa la xayawaanka ka ugu awooda badan ama ugu lixaadka weyn waay haddana duurku ku jira tayadiisa iyo quwaalkiisa lama arko marka beelweyntan uu maroodi ahay hadday inta maroodinimadii ka baxday bannaanka soo istaagtay ay tayada banaanka keentay maxay oo ay kashteen bulshadu markay kashata ayay wax noqotaa waxaa farxadii ah sanad ka hor markii aan aasaasnay oo hubiyo waa la ogaa wixii qarash baxay wixii mas'uuliyad baxay wixii dadaal baxay oo dowladda fangareyn maxay ahayd tabaal caalam xasiini farxada koowaad inaan wax qabsan karnaa ogaanay maanta feedback ayaa noo soo noqday waxaan ogaanay waqtigii aan bixinay faa'iidadiisii markale hambaliyaan leeyahay golaha hoggaanka iyo odayaasha dhanaanka meesha lagala jooga ee ka tirsan hoggaanka dhaqanka
waxaan iska rabaa marka barnaamijkii maradu diiwaangelin soo gaaray oo daliya dibadda aan isdiiwaangelinayno tayadeena ilaahay kama dhigantii maroodiga waa saan u sheegay insha allah waan soo dhaweynaynaa waana ka faa'iidaysanaynaa waana u faa'iidaynaynaa bulshadeena oo ka qayb qaadanaynaa tirakoobka iyo diiwaangelinta geedka hoostiisa midka jira iyo kan duurka jooga iyo kan ceelka jooga iyo kan aasiya adduunka dacaladiisa jooga inaan hal soo wada galno mandaqad tayadeena ayaa halkaas ka soo baxaysa. qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka oo isdiiwaan geliyay ayaa bulshada beeshan Habargidir ugu baaqay ama ku booriyay in ay isdiiwaan geliyaan. cadaaladda waxay ku jirtaa in isdiiwaan geliyo oo dadka Soomaaliyeed oo cadaaladdaas u baahan ay wada helaan oo la isaabulo sida iska wax u qabsan jiradka ugu dhisanayno iska wax u qabsan isku diiwaan gelino qof walba ha noqdo qof ku tadawacaya inuu asagu isdiiwaan geliyo qofka kale waa la dhashay halkan ka jiro gudaha joogo isdiiwaan geli hadaba kulliga marka isdiiwaan gelino walaalaha dariskana oo isdiiwaan gelinaya Soomaaliya ma fududaanaysa baryaha iska daynayna. Allahna waxaan u mahad celinayaa golaha hogaaminta Habargidir qaasatan guddiga siyaasadda oo hormuud ka ahaa hawshan aan maanta bilownay ee ahayd diiwaangelinta beesha Habargidir arrinkaasoo waqti badan la geliyay iyo kharash badan oo muddo laga soo shaqeynayo hormuud ka ahaayeen guddiga siyaasaddu aanan rajaynayno hadda inta dhiman haddii ay nagu garab siiyaan beeshu oo ay isdiiwaan geliyaan iyagu shaqada sida loo soo fududeeyay sida looga soo shaqeeyayba in aysan waqti badan nagu qaadan haddii Ilaahay idmo qabsoomideeda iyo dhamaystirkeedu sida awgeed waxaan codsanaynaa maadaama waqti badan iyo hawl badan iyo kharash badan la geliyay waxaan ka codsanaynaa dadka loo diyaariyay diiwaangelintan oo muhiim ah iyagana muhiim u ah kabeel ahaan Soomaalidana muhiim u ah ku dayashana mudan in ay gacan ka geystaan oo sahlaan arrinkan goluhu uga soo shaqeeyay oo Soomaalinimada iyo beelnimadaba muhiimka u ah inay gacan ka geystaan oo soo diiwaan geliyaan sida ugu fudud oo hadda ka bilaabatay xamar iyo gobolada intaba waxaan aad ugu dhiirigelinaynaa dadku inay u dhaqaaqaan arrinkaas nalana sahlaan oo qaybtooda ka qaataan. marka koobaad Ilaahay baa xamdinaq iyo shukrinaq iskale naga dhiga dad islaama. marka labaad waxaan u mahad celinaynaa guddiga hogaaminta Habargidir qaasatan teemka siyaasadda ee soo alifay ee maskaxdooda ka soo dhalaaliyay arrintan iyo hawshan maanta wax galka noo ah. waxaan codsanaynaa kuna gubaaminaynaa beesha Habargidir dal iyo dibad meel ay joogtaba inay isdiiwaan geliyaan qaataan iyagoo u danaysanaya iyagoo tooda u danaysanaya oo cid kale inuu danaynayo Soomaali weyn u danaynaya waayo waa arrin aad iyo aad u dhaxalgal ah qiimo badan waxa weeye si aan loo ogaado waxa tahay iyo dadkaaga iyo jurmigaaga iyo intaad la eg tahay saa darteed haddaan nahay odayaashii beelaha waxaan ku go'aaminaa meel kastoo joogaan gobolka Banaadir iyo gobolada iyo dibadba kuwa anke dibadaha jira waxaan leenahay qaata tiro goobta soo gudbiya warqadaha naqaata fudaydiyana waxaan leenahay boqolkiiba boqol fudaydiya. waxa maanta noo bilowday annagoo ah golaha hogaaminta Habargidir diiwaangelintii aan ku sameynaynay bulshada Habargidir meel walba ay joogaan oo aan ugu talagalnay inaan ku diiwaangelino degmooyinka iyo deegaanada ay degan yihiin Habargidir ama ha ahaato Soomaaliya qaybaheeda kala duwan ama ha ahaato gobolka Banaadir ama ha ahaato gobolada kale ayaa maanta noo bilowday. ahmiyadda aan ka leenahayna waxay tahay inaan registration ku sameyno ama aan maaragtay diiwaangelin ku sameyno da'da ka weyn 15 iyo ilaa intii maaragtay la diiwaangelin karo. waxaan rajaynaynaa insha Allah in ummadda kale Soomaaliyeed ama qabiilada kale Soomaaliyeedna ay nooga daydaan. waxaan diyaar u nahay inaan ka kaalmayno diiwaangelintaas iyo casharada aan ka baranay. dhalinyarada iyo haween ka soo jeeda beeshan oo isdiiwaan geliyay ayaa iyaguna waxa ay ka hadlayaan sida ay u arkaan nidaamkan ku cusub geyigeena. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta beesha aan ka dhashay oo ka mid ah beelaha Soomaaliyeed tirkoob iyo diiwaangelin ay dadkeeda ay ku aqoonsanayso maanta inaan ka mid noqday iskana diiwaangeliyay insha Allah taala kana shaqeyn doono si aan maaragtay tirkoobkaas familkeena inta maaragtay uu ku baahsan yahay dalka Soomaaliya oo dhan aan saas u soo diiwaangelino ee dhikaar noo sameeyno. way soo diiwaangeliyay waxaan diyaar u nahay inaan dadka la sii diiwaangelino
qof walba uu furan yahay barnaamijkan golaha hogaaminta Habargidir waxa uu baaqi lahaa kala gabdhaha inay si fiican isku diiwaan geliyaan waxaan ka mid ahay qayb ka shaqaysan degmada Daymida kuwaasoo ka kooban 50 qof waxaan wadanaa barnaamijkan mobilada ayaan ku sidanaa waa application fudud marka waxaan ku isticmaalnaa markaan joogno goobaha sinada xaafadahana iyo waqti kasta aan fursad helno waxaan awoodnaa dadka diiwaangelino marka maalintiiba ugu yaraan waxaan diiwaangelinaa degmada aan joogno 10 qof annagoo ku guda jirna ama qorsheyna in maalin bishii aan samayno ilaa 300 qof. barnaamijkan maanta laga daafuray magaalada Gaalkacyo waxaa la gaarsiinayaa guud ahaan deegaanada ay degto beesha Habargidir.